السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. casharkii shanaad ee barashada Adobe Premiere Pro. casharka maanta waxaan kaga hadlaynaa sida video loo dhexgeliyo ama loo dul saaro. meeshan waxaan ku haysanaa laba video. waxaan rabnaa inaan laba video aan dul saarno. markii aan rabno inaan video dul saarno ama video aan soo dhexgelino kan tusaale kale videohan markii aan rabno inaan video kale soo dhexgelino just waxaan sameynaynaa inaan korkiisa aan saarno xaggan meesha ay ku qoran tahay video 2. haddii aan rabo hadda video inaan soo dulgeeyo videohaas waxaan sameynayaa tusaale kale videohan ayaan soo yara jeedinayaa kadibna inta aan geenayaa kadib marka inta aan geeyo marka hadda aan daaro tusaale kale fiiri يعني فيديو كلام ايش وكبحيا كان ايان لتصيا videohan inta badan masta waxa waa inta badan يعني ma aha inuu video dheer noqdo waa video arabtid inuu wax yar laga arko kadibna kii kale uu ku noqdo waxaan sameynaynaa inaan aan yara jarno ilaa xagaas ayaan leeyahay cut. Okay, hadda video markuu soo u socdo ayaa waxa soo dhexgeliyay videohaas kale hadda u fiirsatid video kale la qarinayaa kan ayaa soo dhexgelaya marka haddaan rabno inaan mid kale sii dhexgelino tusaale kale mid kale waxaan sameynaynaa asna inaan soo jeedno ilaa xaggaas. Okay, waxaan transition yaraan ku daranaa si waxoogaa nagu qurux badnaato video transition. Okay, zoom labada video dhex dhigaya. Okay, hadduu yara fiicanayaa yara qurux badnaanaya aan ka wada. Okay, markaan waa markii aad rabtid video inaad video kale dul saartid oo marka waxaad sameynaysaa just inaad videoha soo jeedid aad rabtid inaad dul saartid kadibna waxaad geenaysaa meeshaan korkiisa videoha. haddii aad rabtid hadda mid kale inaan sii dul saarnana waxaan sameyn karnaa video kale haddaan raadina kan amaba kan laftigiisa haddaan rabo mid kale inaan sii dul saarno waxaan sameyn karaa in aan xaggaas sii geeyo oo hadda fiiri maxaa dhacay markaan xaggaa geeyo kaas kale ayaana loo soo qabanayaa kana videohan kale just loo soo qabanayaa kadibna kana ku xiga saas sameyn kartaa oo saas isku dul saari kartaa markaa rabtid inaad video dul saartidna waa just inaad soo jeedid kadibna aad korkiisa saartid. casharkan maanta waxaan kaloo ku arkaynaa sida text aan ugu darno kadibna textiga transition aan ugu darno yani textiga ha noqdo mid markuu qormayo si kusoo baxa transition ah. haddaan hadda text inta ku qorno waxaa looma jeedo okay kadib waxaan sameynayaa inaan colorkiisa yara bedelo kan ayaan tegaya meeshan ayaan tegaya ay ku qoran tahay essential graphics. Okay, textiga waxaan bedelayaa colorkiisa color guduud ah si loo arko. Okay, color guduud ah okay markii waxaan rabnaa textigan in uu nagu soo baxo qaab yani isagoo qaab transition ahaana yani qaabka u qormayo. hadda fiiri haddii textigan aan geeyo inta textigan markuu soo baxayo wuxuu kusoo baxayaa qaab yani iska normal ah kusoo baxayaa qaab iska normal laakiin anaga saas ma rabno waxaan rabnaa in uu nagu soo baxo qaab isagoo isqoraya camal ah. Okay, waxaan sameynayaa markaan rabno inaan taas aan sameeyo waxaan tegayaa effect kadibna waxaan ku darayaa wax loo yaqaano crop kadibna waan kusoo jeedayaa
kadibna textigaan tegayaa, waxaan tegayaa meeshii effect control markaan tago ayaan sameynayaa waa kana marka hadda crop baan lagu daray. So dhinacee rabtaa text inuu kasoo baxo, ma left ma top mise right mise bottom. Let's say aan dhahno right oo kale. Marka right ayaan ku dhufanayaa, marka aan right aan ku dhufto ayaan waxaan sameynayaa marka aan right aan ku dhufto waxaan sameynayaa in aan yara jeedo ujeedaa dhinaca u yara jeedo ilaa 100 kadibna aan xoogaa inta saas dhaho wax yar aan yara jeedo kadibna aan ku celiyo 0. Okay, so text hadda markuu isqorayo fiiri marka qaabku isku qorayo, yani qaab uu dhinacan right ka soo baxayo. Okay, haddaan xoogaa meeshaan isku yara dhow yahay aan kala durjiyo. Okay, markuu qormay hadda fiiri marka qaab yani wuxuu u qormayaa sidii hore si ka fiican camal. Okay, jidda okay. marka rabtid textiga inaad aad ka dhigtid mid xoogaa qurux badan saas samayn kartaa. Crop baad dhahaysaa, kadib marka crop ku dartid kadib just waxaad dhahaysaa dhinacoo rabtid inuu ka qormo camal. haddaan ka bedelno dhinacan leftiga top oo kale. Okay, kan inaan okay. So top oo kale aan rabaa hadda inaan keyframe ku sameeyo. Waxaan sameynaya inaan marka hadda aan jeedo. Okay, kadib haddana aan wax yar video wado xaggaan oo kale, kadibna 0 enter. Okay, so aan isla aragna marka xoogaa isku yara dhow yihiin. haddaa aragtid ma aragtay speed inuu ku furan yahay keyframeka. Okay, waa laga qurux badan yahay top. laakiin lefty oo kale aan tijaabino. badan lefty right ma isticmaala textiga, top looma isticmaalaba badanaa. Okay, and lefty aan keyframe ku daro kadibna aan jiido. Okay, kadibna aan video wax yar dhaqaajiyo kadibna aan 0 aan dhaho sidiisa hore aan ku celiyo. Okay, so haddaan isla aragna haddana okay wax yar aan kala durjiyo. Okay, marka rabtid inaad qurxisid textiga, aad rabtid qaab inuu kugu soo baxo tiran qaab uu isqorayo camal ah, taas samayn kartaa. crop baad dhigi kartaa kadibna dhinacaa rabtid inuu kasoo baxo, ma left ma bottom ma top ma right. So kadib waxaad leedahay mataqaanaa keyframe, kadibna waad jiidaysaa, kadibna waxaad sameynaysaa in aad inta wax yar wadid aad marka hore inta aad ka dhigtid 100 kadibna aad ka dhigtid sidii soo hore. hadda fiiri haddaan wax yar aan kutuso fiiri dhinacaas ka soo baxaya, yani dhinacan Adobe 2 oo ah tii u dambeysay aan qornay ayuu kasoo bilaabanaya ujeedaa ilaa marka dambe uu iskeenayo welcome. So waa marka aad rabtid inaad texti aad qurxisid iyo markii aad rabtid inaad video dul saartid. marka casharkan maanta intaanu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.